tan iyo intii ciidamadeena qalabka sidaa ay soo afjareen isla markaana kala eriyeen maleeshiyaadkii caasimadda ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda kaga dhawaaqay inaan dawladda jirin dalkana ay iyagu mas'uul ka yihiin waxaana soo gaadhayay waraaqo hambalyo iyo dhiirigelin oo inagu boorinayo inaynu adkaysano nabadgelyadeena iyo dawladnimadeena waraaqahaasi waxay naga soo gaadhayeen wadamo badan oo aynu saaxiibnahay gaar ahaan wadamada Carabta oo markay maqleen caasimadda dhexdeeda oo laga leeyahay dawladda ma jirto aad u warwaray xalay ayay wasaaraddeena arrimaha dibadda soo saartay warqad faahfaahsan oo ay ku soo dhaweynayaan talooyinkii ka yimid saaxiibada caalamka uguna balbalaarinayaan sida wax u dhaceen laakiin halkan waxaan idinku yeeray in shacabka Soomaaliyeed aynu u sheegno ay la wadaagtaan in waraaqahaas ay ku dhex jirtay warqad midab kale leh oo mustaqbalka dalkeena way keenaysay mid madow muddo aad u dheer Soomaaliya iyo dawladda Imaaraadka Carabtu waxa ka dhaxeeyay xiriir walaaltinimo mid dhaqan iyo mid ganacsi oo waliba aad u qoto dheer xiriirka labada dal iyo labada shacab waxa lagu tilmaami jiray walaalihii runta ah dadka Soomaaliyeed waxay muddo dheer u hayeen dawladda Imaaraadka Carabta iyo shacabkeedaba qadarin aad iyo aad u weyn ilaahay ha u naxariisto Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan wuxuu ku qornaan jiray qulubta shacabka Soomaaliyeed aadna way u jeclaayeen sababtoo ah weligood wax dhibaateynaya kuma samayn wax taraya mooyaan iyadoo waxa soo dhimi jiraan haddana muddooyinkii ugu dambeeyay kadib markii madaxda dawladda Imaaraadka u qaabilsan arrimaha dibadda ay u dhaqmeen si aan ka turjumayn walaalnimadii soo jireenka ahayd ee shacabka Soomaaliyeed iyo dawladdoodaba waxa galay shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyaba waxa galay shaki ah oo inay isweydiiyaan in Imaaraadku la jiraan iyo inay ka jiraan ummadda Soomaaliyeed habdhaqanadoodii dulqaad iyo ilaalinta walaaltinimada ayaa dawladda Soomaaliyeed ku khasbay inay mar kasta wanaajiso xiriirka labada dal si kasta oo loo tuhmayay oo loo tabanayay oo ay wuxuu muuqdeen haddana qadarinta walaalnimada iyo taariikhda iyo xiriirka ayaa dawladda ku khasbayay in ay ilaaliyaan wanaagga haddaba maanta waxa dawladda Imaaraad ka soo baxday warqadda aan kor ku soo sheegay midabka kala lahayd oo aan meel ka waafaqsanayn xiriirka diblomaasiyadda qaynuunka caalamiga walaalnimada labada wadan iyo dhaqanka Carbeed ee ku dhisan is-ixtiraamka warqadda Imaaraadka waxa ka muuqda inaysan aqoonsanayn dawladnimada Soomaaliya oo ay dawladda inkarayaan taasoo abuuraysa in hadalkii halkan laga lahaa dorhaad ee dawladda ma jirto iyo warqadda dawladda Imaaraadka ka timi ay isla socdaan warqadda waxa ka muuqda in Imaaraadku uu ka rabo Soomaaliya inay noqoto sida Yemen iyo Liibiya oo kale oo ay ka abuurto fawdo iyo barakac waana waxa shacabka Soomaaliyeed ka feejigan yihiin sababtoo ah filimada horarka ah ee fawdada ah ummadda Soomaaliyeed hore u soo daawatay mar labaadna ma rabaan inay filimada dib u daawadaan argagax iyo dawlad laanta warqadan waxa shacabka Soomaaliyeed iyo dawladoodaba u cadaysay tuunkii ay qabeen ahaa saraakiisha arrimaha dibadda Imaaraadku inay qayb ka ahaayeen dibindaabiyadii dalka lagu hayay sanadihii la soo dhaafay oo dhan dibindaabiyadaas oo si cad uga hor imanaysa qaynuunka caalamiga international lawga waxaana waqtiga loo baahdo iyadoo cadeynteeda wadata soo bandhigi doona hay'adaha ay khusayso waxaana ka dhalan kara sharci jabinta mas'uuliyad waxa kale oo warqadan ka soo baxday dawladda Imaaraadka gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ay shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed dib u xusuusisay maalmihii la saxaxay heshiiskii 17 Sebtembar 2020 ee qaar ka mid ah madaxdii heshiiska saxaxday isla maalmihiiba ay u safreen Imaaraadka kolkii ay ka soo laabteenna ay la soo noqdeen iyagoo shuruudo cusub wata mar walbana keenaya caqabado hor leh dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed waxay ka fajacsan tahay colaadda intaas leeg ay saraakiisha Imaaraadku u qabaan dadka Soomaaliyeed ee jecel walaalahooda Imaaraatiinta dadka Soomaaliyeed waxay isweydiinayaan maxay walaaladeen noogu diidan yihiin nabadda horumarka iyo wanaagga annaguba intaa in leeg ayaanu la jecelnahay shacabka Soomaaliyeed waxaan u cadeynaynaa in hadalka maanta Imaaraadku soo saaray uu yahay mid qarannimada iyo jiritaanka dalka
baabiinaya waxaana muhiim ah dadka Soomaaliyeed inay fahmaan waxaan la hadlayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay fahmaan waxa la damacsan yahay wax dagaal sokeeye inuu dhaco si loo xalaalaysto dhulkooda iyo baddooda oo haddaba muran la geliyay waxa laga yaabaa in dadka qaar yiraahdaan haddii walaaladeen nagu qaldameen inagu maan ka roonaano oo maan ka aamusno oo ayaynaanu jawaabin cajiib haddii maanta aan ka aamusno dal dhan oo walaalaha oo shaqiiq ah oo leh statementkoodii baan rabaa saddexda erey ku jireen haddii sheego dagaal iyo qalalaasi ayaa hadda ka socda there is ongoing violence in Muqdisho hadduu socdaa bay dib ku leeyihiin dagaal baa socda xaaladda Muqdisho way ka sii daraysaa territoriality bay noqotay way ka sii daraysaa Soomaaliya dawladda kama jirto way dhamaatay inteeran baa loo guuray waxaan ka soo baxnay 2012 ayay rabaan inay nagu celiyaan dawlad laanta hadallada warqadda ku qoran waxay xusuusiyeen markaan arkay xalay hadallada ku jiray heestii Abwaan Cabdi Qays ahaa ku wiirsaad leedo nolosha baa waaye aniga wadkayga iyo waqtigaygu galino waynuhu idaayay waxba ila ma tahay waxa alla wax runtii warqadda ku qornay la hareen ma garanayo aniga wadkayga iyo waqtigaygu galino waynuhu idaayay waxba ila ma tahay dagaal iyo qalalaase ayaa ka socda xamar bay dhaahdeen xaaladda Muqdisho way ka sii daraysaa bay dhaahdeen Soomaaliya dawladda kama jirto ay dhaahdeen haddii aan waxaas ka aamusno soo jawaabtu noqon mayso xigmadii Carbeed ee oran jirtay as-sukut calaamatu rida aamusku waxa lagu garto inaad raali ka tahay waxaad ka aamustay nidaar qabaanigii reer Siiriyana waa sii fogeeyay aamusko sukuutka wuxuu yiri waxa weeye waa ihtiyaaj iyo wajh iyo alam wuxuu ku aamus hadaad ka aamusta gartaada waxay ka dhigan tahay inaad hoos u dhigtay qabkaagii iyo qiimahaagii taasna haddii aanu Soomaalinahay inaanu qabkayaga iyo qiimahayaga hoos u dhigno dhaqanna uma lihin hidana uma lihin sinaan ayaanu dhaqan u leenahay inaanu bini'aadamka la simanahay Soomaaliya waa dal xor ah oo madax bannaan sida uu dhigayo axda qaramada midoobay United Nations Charter madax bannaanida dalna laguma baxad gudbi karo madax bannaanidu kuma xidhna dhaqaale bad iyo ballac iyo juqraafi toon dalka ugu yar ee 100 kuna iyo ka ugu badan ee 1.5 billion ka according to the international law waa isku xuquuq dadku way simeeyeen inna caarma dheer sovereigns are equal and have equal sovereignty all states are equal and have equal sovereignty dawladda Soomaaliyeed waxa ka go'an inay difaacdo madax bannaanideedaas qarameed waana ka tanaasulay arrinta doorashooyinka oo warqadda ku qoray waxaanu cadeynaynaa inay tahay arrin khusaysa arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya arrimaha gudaha ee Soomaaliya mala jiro dal ogolaanaya in qof waliba ka hadlo doorashada dalkiisa dal qura oo ogolaan kara in doorashadiisu ay noqoto timir xabaal taala ma jiro sababta darteed waxaan rabnaa inaan u sheegno dhammaan dunida saaxiibada iyo wadamada aan saaxiibka ahaynba in arrinta doorashadu ay tahay arrin gudeed internal and domestic affairs waxaan uga digayaa cid kasta oo ku fikiraysa faragelin inay dib uga joogsato ciddii aan wanaag iyo horumar nagala shaqaynaynin fadlan dib inagu filan faraq iyo gacmaha ayaan ku haysanaa oo cadow baanu dagaal kula jirnaa ee dib kale anoogu dareen haddii aan horumarkayga iyo iftiinka dawladnimo ee noo soo baxaya ku farax gelinaynin ma samayn karno waxa ku farax gelinaya oo ah inaan istilno oo qaxno oo gumowno qofka aan farax gelinayn horumarkeena iyo dawladnimadeena maanta waxa farax gelinaya oo garanayna taana ma samayn karno oo dib uma laaban karno ugu gabagabadii walaalaheena Imaaraadku iyo warqadoodii xalay ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda iyagoo u malaynaya inaanan arkayn habdhaqankooda waxay xusuusinayaan xigmadii Mawlaana Jalaaluddin Rumi ee ahayd
Look at my eyes. They are small, but they say animal things. Indhahaygu way yaryar yihiin laakiin wax badan bay u jeedaan. Laga yaabaa inay isleeyihiin Soomaaliya waa dal soo koraya oo soo dhismaya soo kabmaya laakiin wax badan ayaa inoo muuqda oo aynu jeednaa. Ugu dambayn iyadoo waxaas oo dhan lagu sameeyay annaga oo ah dal iyo dad ka soo kabanaya burbur iyo dhibaatooyin dagaal oo aan rabin inay dib ugu laabtaan jidkii foosha xumaa waxaan dawladda walaalaha ee Imaaraadka ka rajaynayaa inay noo fasirto hadalka gefka ku ah qarannimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed khaladka ay gashayna ay ka cudur daarato marhabno kelmadeeda ugu dambaysa u fiirsada marhabno in jiilasha soo socda ee Carbeed aynu uga tagno godob iyo taariikh madow oo dhaxalsiisa inay noqdaan qaar aan isu hiilin oo isnacab marhabno in jiilasha soo socda ee Carbeed aynu uga tagno godob iyo taariikh madow oo dhaxalsiisa inay noqdaan qaar aan isu